soo dhawaada akhyaarta waxaa gabi ahaanba ka maqan shirkadda Facebook barnaamijyada ay lahayd sida WhatsApp iyo Instagram ayadoona la sheegin sababta loo joojiyay ma ahan Soomaaliya waa dhammaan caalamka oo dhan iyo gudaha Mareykanka shirkadda Facebook oo leh barnaamijyada WhatsApp iyo Instagram ayaa eedeymo fara badan oo dhanka internetka ah wajahayso waxayna dawladda Mareykanka ku soo eedeysay in wax lagu dhibaateeyay adeegyadeeda internetka shirkadda Facebook ayaa iibsatay Instagram iyo WhatsApp sidoo kaleeto waxaana iska leh ninka lagu magacaabo Mark Zuckerberg lama oga sababta ka dambeysa in dhammaan caalamka oo dhan laga joojiyo isticmaalka saddexda barnaamij oo uu leeyahay Mark Zuckerberg oo ugu weyn yahay Facebook, Instagram iyo WhatsApp saacadahan kooban ay Facebook hawada ka maqan tahay waxa ay jaanis u tahay shirkadaha kaleeta ee social media sida Twitterka iyo Telegramka ciladan oo markii hore loo maleynayay cyber attack ama in la soo weeraray shirkadda Facebook ayaa Facebook waxa ay cadeysay inaysan jirin wax cyber attack la yiraahdo hadii lacala ay jiri lahayd cyber attack waxa dhici lahayd in qayb kamid ah userada ay saameyn lahayd aysan shirkadda dhan wada saameyn lahayn dad badan oo aad u isticmaali jiray social media ayaa dareemaya cilado fara badan qaasatan Facebook hadii caawa aad qadka ka maqan tahay si lamid ah lamaankaaga ama lamaantaada ayadan waa ay ka maqan tahay hoos noogu reeb faaladaada quruxda badan mahadsanidin